ku soo dhawow koorsadeena naxwaha luqadda Ingiriiska qaybta koowaad ee English A1 Grammar Beginner Level. Koorsadan waxa ay ku salaysan tahay nidaamka caalamiga ah ee loo yaqaano CEFR, Common European Framework of Reference for Languages. Koorsadan waxa ay xoogga saaraysaa asaasiyaadka naxwaha luqadda iyadoo si wacan u sharxaysa 4 ka mid ah 8 qaybood ee hadalka iyo sida loo isticmaalo waqtiyada ama tennisyada. Mowduucyada lagu sharxayo koorsadani waxaa ka mid ah singular and plural nouns, countable and uncountable nouns, possessive nouns, pronouns, be verbs, action verbs, auxiliary verbs, irregular verbs, active and passive voice, adverbs, present simple tense, past simple tense, future simple tense. Koorsadani waxa ay ka kooban tahay in ka badan 16 cashar oo maqal iyo muuqaal ah, in ka badan 55 layliyo lagaaga shaqeeyay, iyo buugga koorsada oo isaguna ka kooban in ka badan 55 bog. Tayada iyo tirada casharada waa kuwo si gaar ah looga fikiray iyadoo lagu saleeyay heerka koowaad ee naxwaha luqadda si uu qofka ugu gudbi karo heerarka ka sarreeya si fudud. Kuwa kastoon la tirin karin oo مثلا ama group ka kooban ama caadiyan siday u samaysan yihiin ba wax la tirin kara ahayn iyagu waxa la yiraahdaa non-count nouns ama uncountable nouns. Good. Aan fiirino marka tusaalooyinkan magacyadaas. Example countable nouns kano kala aan fiirino. Pen. Si aad ula socotid heerka aad maraysid luqadda waxaan kugu soo darnay cutub waliba gadaashii layli aad ku hubinaysid fahamkaaga adigoo ka helaya buugga koorsada dhammaan jawaabaha su'aalaha layliyada ku jira. Those gloves has gacangashigaasi gloveskaas ma kuweediiba lama dhahayo are those gloves hairs lama dhahayo apostrophe s laguma darayo. Markaad eegtid past, present and future oo la isticmaalayo isla verbkii tusaalaan isla ficilkii. Tusaale Yesterday, I ate a delicious meal at a new restaurant. Shalay waxaan ka cunay cunto macaan maqaayadii cusbeed ama baarkii cusbaa. Marka ate erigaas waa past. Buugga koorsada waa mid si heer sare ah loo diyaariyay oo u diyaar ah inaad dejisatid kadibna aad ku daabacatid cabirka rasmiga ah ee loo yaqaano A4 size. Hormari aqoontaada naxwaha luqadda Ingiriiska si aad uga hadashid uguna qortid luqadda si sax ah goor waliba. Gudaha ayaa inoo ballana insha Allah.